Galab kasta marka ay qorraxdu sii dhacayso, Jaamac wuxuu fadhiistaa balalkoonka gurigiisa, isagoo eegaya carruurtiisa oo ciyaaraya. Waxa uu xusuustaa wakhti haatan laga joogo ku dhowaad 20 sano, markaas oo uu ahaa wiil 10 jir ah, oo aan haysan wax dammaanad ah inuu habeenkaas u noolaanayo. Wakhtigaas, qoyskiisu waxay ahaayeen xoolo dhaqato ku nool miyiga fog, iyagoo haysta ku dhowaad 150 neef oo ari ah iyo 30 halaad oo geel ah. Noloshu waxay ahayd mid barwaaqo ah, ilaa laga gaaray sannadkii ay abaartu dhuftay. Abaartu si lama filaan ah ayay u timid. Sannadkii koowaad, daruuri ma soo muuqan. Sannadkii labaadna, dhulku wuxuu noqday mid dilaacay oo aan wax cagaar ah lahayn. Muddo 18 bilood ah, dhulka ma ay dhibicdiin wax dhibic roob ah. Xoolihii waxay u dhimanayeen sidii caleemo geed ka dhacaya. Maalin kasta, Jaamac wuxuu arkayay aabbihii oo jiidaya neef bakhti ah. Markii ay ka soo hareen kaliya 5 neef oo ari ah, aabbihii wuxuu go'aansaday inay u barakacaan dhanka magaalada weyn. Safarku wuxuu ahaa mid dheer oo aan naxariis lahayn. Qoyska oo ka koobnaa aabbe, hooyo, iyo 5 carruur ah, waxay bilaabeen inay lugeeyaan masaafo 100 kiiloomitir ah. Waxay wateen kaliya 2 weel oo yaryar oo biyo ah iyo xoogaa haruur ah, oo ay rabeen inay jidka ku cunaan. Socodku wuxuu ahaa mid dhib badan, waxay lugaynayeen ku dhowaad 10 saacadood maalin kasta iyagoo qorraxdu ay dushooda karkarinayso. Maalintii 5aad ee socodka, biyihii waa ay ka dhammaadeen. Jaamac wuxuu xusuustaa in dhuuntiisu ay noqotay mid aad u engegan ilaa uu awoodi waayey inuu liqo candhuuftiisa. Walaashiis ka yar oo 4 jir ahayd, ayaa miyir doorsoontay. Hooyadiis waxay isku dayaysay inay maro qoyan ku masaxdo wejigeeda si ay ugu qaboojiso, laakiin maradii lafteedu waa ay engegtay. Habeenkaas waxay seexdeen geed hoostiis iyagoo maqlaya guuxa dugaagga, balse gaajada iyo haraadka ayaa ka xanuun badnaa cabsida libaaxa. Maalintii 7aad, markii ay ka soo hareen qiyaastii 60 kiiloomitir magaalada, Jaamac wuxuu dareemay in lugahiisu aysan sii qaadi karin. Wuxuu fadhiistay waddada dhinaceeda, isagoo indhaha isku qabtay, isagana dhigay qof dhintay. Aabbihii ayaa isku dayay inuu dhiirigeliyo, laakiin awoodda aabbihii laftiisa ayaa dhammaatay. Xilligaas oo ay rajo kasta goday, ayaa waxaa masaafo fog ka soo muuqday boodh ay kacday gaari. Waxay ahayd baabuur xamuul ah oo siday raashin iyo biyo. Darawalkii baabuurka ayaa istaagay markii uu arkay qoyskan dhibaataysan. Wuxuu siiyey 5 dhalo oo biyo qabow ah. Jaamac wuxuu yidhi, wakhtigaas biyahaas waxay iila dhadhamayeen sidii wax adduunka ugu macaan. Ninkii darawalka ahaa wuxuu qoyska u qaaday magaalada, isagoo geeyey xero ay ku sugnaayeen dad badan oo abaartu ka soo barakicisay. Xerada barakacayaasha, noloshu may ahayn mid fudud, laakiin waxay ahayd mid badbaado leh. Waxaa la siiyey teendho yar iyo 2 buste. Muddo 6 bilood ah, Jaamac wuxuu maalin kasta safka ugu jiray helitaanka raashin iyo biyo. Inkastoo ay hanti kasta waayeen, haddana xubnihii qoyska oo dhan way badbaadeen. Jaamac wuxuu helay fursad uu ku galo dugsi ku yaalay xerada dhexdeeda, halkaas oo uu ka bartay casharadiisii ugu horreeyey. 10 sano kadib, dadaalkii Jaamac wuxuu dhalay natiijo. Wuxuu dhammeeyey dugsiga sare isagoo ka mid ahaa ardayda ugu sarraysa. Isagoo isticmaalaya xusuustii dhibka uu soo maray, wuxuu go'aansaday inuu barto caafimaadka si uu u caawiyo dadka tabaalaysan. Maanta, Jaamac waa nin weyn oo 38 sano jir ah. Wuxuu u shaqeeyaa hay'ad samafal ah, isagoo mas'uul ka ah qaybinta raashinka iyo biyaha meelaha ay abaaruhu ka jiraan. Marka uu maanta eego nolosha barwaaqada ah ee uu ku jiro, Jaamac marna ma iloobo maalintii uu waddada dhexdeeda ku dhowaaday inuu u dhinto haraad darteed. Wuxuu mar kasta carruurtiisa u sheegaa in nolosha ay tahay hanti qaali ah oo u baahan samir iyo adkaysi. Wuxuu u sheegaa in xitaa haddii aad weydo 100 neef oo ari ah, inaad weli haysato fursad aad ku dhisto nolol cusub haddii aad badbaado hesho. Gunaanadka sheekada Jaamac waa mid ina tusaysa in dhib kasta oo qofka soo mara uu yahay cashar uu kaga gudbi karo caqabadaha mustaqbalka. Maanta, walaashiis yar oo 4 jirka ahayd markii ay dhiman rabtay, waa macallimad dugsi, waxayna haysataa nolol deggan. Sheekadoodu waa mid markhaati u ah in rajo kasta oo luntay ay dib u soo noolaan karto, haddii la helo badbaado iyo gacan caawisa. Jaamac wuxuu maanta u nool yahay inuu noqdo gacantii isaga badbaadisay 20 sano ka hor.